madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray subaxnimadii maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Wafdiga madaxweynaha ayaa deegaanka Kalaksharka oo kala qaybiya gobolada Togdheer iyo Saaxil. Waxa ku soo dhaweeyay dadweyne tiro badan oo ay qayb ka yihiin xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco, wasaaradaha laamaha dawladda ee gobolka Togdheer, odayaasha dhaqanka, ururada haweenka, kuwa dhalinyarada ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale shacbi weyn tiro badan. intaasi kadib madaxweynaha iyo waftigiisa ayaa loo soo galbiyay dhanka magaalada Burco iyada oo uu madaxweynuhu ka qayb gali doono munaasabada qalin jabinta ardayda jaamacadda Burco. sidoo kale waxa lagu wadaa inuu madaxweynuhu xariga ka jaro mashaariic ay ka mid yihiin dib u dhiska iyo casriyeynta garoonka kubadda cagta ee Burco ee Alamsey Stadium iyo mashaariic kale. tan iyo intuu madaxweyne Biixi talada Soomaaliland qabtay ayay noqonaysaa markii labaad ee uu yimaado magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco iyadoo lagu wado inuu madaxweyne Biixi u sii gudbo dhanka gobolada bari. waa Fahmi Kaysa Xirsi, Bulsha TV, Burco.